Waxaanu maanta booqasho ku tagnay qabrigii awoowahay Kablo Laxdaarood Ismaaciil oo halkan ku aasan galbeedka magaalada Qardho. Ilaahay jannada firdawsa ha ka waraabiyo, qabrigan ha u waasiciyo. Qabrigan waxaan arki jiray yaraantaydii ilaa hadda nabwaasidiisii. Masaajidka halkan ka dhisan waa masaajid taariikhi ah. Aasaartii Kablo Laxdaarood qabrigiisii inay weli muuqato. Nin shakhsi dhalay 15 milyan ee duriyadiisu ka badan tahay in aasaartii qabrigiisa ay weli muuqato oo jirto waa waxaan caadi ahayn. Kablo Laxdaarood waxa uu degaa Puntland, kilalka shanaad, dowlad deegaanka Soomaalida, waqooyi bari North Eastern Kenya, Jubbaland ilaa iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ka mid ah iyo caalamkaba. Dad Ilaahay badiyay buu dhalay. waxa uu u baahan yahay qabrigan walaalayaal wuxuu u baahan yahay maanta in deyr lagu wareejiyo oo laga xiro xoolaha iyo qashinka iyo xoolaha soo gelaya. Wuxuu kale u baahan yahay in halka boqolihii baan soo goostay biyihii baa qaadaya oo ciidii oo boqolo wuxuu u dhow yahay qabrigu in marka dambeeto uu tirtirmo meeshu ay boqol noqoto tog noqoto in iyadana dhagax lagu shubo oo laga joojiyo ciidda. qabrigan waxa kale kula aasan kulay 2 qof oo kale ayaa kula aasan. waa u soo ducaynay maanta Ilaahay jannada firdawsa ha ka waraabiyo. waxa uu u baahan yahay in ka qayb qaata dhismihiisa iyo sidii loo xafidi lahaa sida qabraha kale loo xafiday. waayo haddii bohoshu qaado meesha meel togay noqonaysaa. waa kulay qarniyo badan ayuu qabrigan jiray. xilligii la dhisayayna halkan lagu aasay halkan lagu aasana waxay ahayd kulay qarniyo hore oo aan magaalada Qardho jirin oo dhulka baadiye ahaa. laakiin dad ayaa xafidi jiray oo dhirtaan hadda u jeedaan waxa laga soo guray buuraha oo meesha waa lagu beeray oo dad ayaa ka shaqayn jiray oo xafidi jiray si meeshu qabuuruhu loo xafido looga celiyo waxyaabaha xoolaha gelaya. walaalayaal ka qayb qaata oo nagala shaqeeya sidii loo caawin lahaa loo xafidi lahaa qabrigan. qabrigan haddii si kale aan u dhaho waa meel taariikhi ah. waayo awlaad duriyada ku nool 3 dowladood shakhsiga dhalay maahan wax caadi ah ama meel caadiya maahan. qof ducaysan buu ahaa. waxa kulay dad odayaal aan ka maqli jiray aabihii Daarood baa u ducaayay wuxuu ku yiri inaa isciisho maahay laguma ciilo. ciil arki maysid adigu in cid kale ku ciisho in adigu isciisho maahay. walaalayaal markaas sii shargareeya fiidiyogan wuxuu u baahan yahay inaad gaarsiisaan duriyadiisa si ay ugu soo duceeyaan. ahmiyadda koowaad aan usoo dubnay fiidiyogan waa inaad usoo ducaysaan awoowe iyo inaad ka qayb qaataan dhismaha meeshan oo ah in la xafido qabriga awoowe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.